odayda ahaa ayaa wiilkiisa waayo aragnimadiisa wax uga sheegay, waxa uuna ku yidhi hadalladan soo socda: wiilkaygiiyo wax walba oo culus ayaan qaaday, mana arag wax deenka culays badan. Macmacaan oo dhan ayaan dhadhamiyey, mana arag wax caafimaadka ka macaan badan. Qaraar oo dhan ayaan dhadhamiyey, mana arag waxa inaad dad u baahato ka qaraar badan. Waxaan soo joogay waayo badan iyo wacyi kala gedisan, mana arag wax ka xun saaxiibka xun. Waxaan cunay sibir, dhib ayaa igu dhacday, mana arag wax ka daran faqiirtinimo. Dad badan oo maalqabeenno ah ayaan arkay, balse ma arkin qof maalkaasi ku qanacsan. Kuwo i neceb ayaa ila caloobay, balse ma arag wax iga cadowsan naftayda haddii ay jaahil tahay. Dharka ugu qaalisan uguna quruxda badan ayaan xirtay, mana arag wax alla ka cabsi ka qurux badan. Waxa uu intaasi ugu sii daray: labana xusuusna oo haylaawun wiilkaygiiyo inta aad nooshahay, xuska alla geerida iyo qiyaamaha. jazaaka allaahu khayr daawashada muuqaalkan iyo la socodka barnaamijyada aan halkan ku soo gudbinno. fadlan sii faafi khayrka oo la wadaag asxaabtaada, ugu yaraan hal qof, si ay uga faa'iidaystaan mar walba khayrka.